أول واحد عنو جين تدك حولي سعنو جين مقطع أحمد وبي حاسب برف marka wixii baa ka kala go'ay oo labadooda arrimaha heshiiyaan si umada xoolaha u bawaan u qaybsadaan haddana waxa weeye nin waliba ninka kale sidoo u xeeladayn lahaa oo u dhabar jabin lahaa buu falankeed hayaa heshiis wax la yiraahdo oo laga gaaraya ma jiraan xamar baa la ololeysa oo Puntland baa la ololeysa oo Kismaayo iyo inta u dhow baa la ololeysa xasan oo kursiga ka deg حسن وكرسيga kadeg in madaxweyne xasan soo dabcay sababtu ku tahay markii hore way kala fogaayeen dhanka madaxweyne xasan sheekh way doorashadii baa soo dhow maamulka Jubbaland xildhibaanna ka soo gala inuu gacan saar la yeesho oo la heshiiyo waa mid muhiim isaga u ah isla maamulka Jubbaland muhiim bay u leedahay xayiraad dhaqaalaha saarnay xayiraadii dhaqaalaha waa laga qaadaya kaalmo caalamiga ma aysan gaarin waa laga qaadayaayo dalkii iyo deegaankii waxba gaaraya waxaan u arkaa shirkaas Axmedooy wuxuu dhacay casbar faba شري دنتو ka hadlayaan buu arkaasay hantida Soomaaliyeed u dhicilaayeen doorta cidna isma dhiibin waxa ka maqan nimankan awalba waxa cunu jeen dadka xuliisa cunu jeen mugta Axmedooy iyo xaasab baraf marka wixii baa ka kala go'ay oo labadooda arrimaha heshiiyaan si umada xoolaha u bawaan u qaybsadaan haddana Soomaaliyeed oo mustaqbal meesha Kismaayo shirkad ka soo baxaya ma jiraan xasan iyo waxa ku heshiiyay Axmedooy waxa uu heshiiyay waa umada Soomaaliyeed ay xoolo waxeeda cunaan marka waxaan leeyahay shirkaas shir Soomaaliyeed ugu jira maahan waa shir Axmed iyo Xasan ugu jira inta uu diray waxay leedahay umada Soomaaliyeed madaxweyne ka dhigata mas'uuliyiin waa u tiir ha u tashanay saad xoolo u culaayeen waxa u tashtaa saad wax ugu qaban lahaydeen ayagoo u taqaanaa oo u tarlaan u tashan leh runtii waana ku dhawahay waa mahadsantihiin Jubbaland iyo madaxweynaha Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud aanu aragtaan waxa oran lahaa waa arrin sax ah waana loo baahnaa walow ay raagtay in ay maanta wada hadal yeeshaaniin waa arrin muhiim ah marka la eego wadanka ama xaaladda ay dalka uu ku sugan yahay Soomaaliya waxayna ila muuqataa in madaxweyne xasan soo dabcay sababtu ku tahay markii hore way kala fogaayeen oo aragtidoodu runtii waxay ahayd aragti aad u kala fog xagga siyaasadda xasan sheekh ayaa soo dabcay waana loo baahnaa inuu soo dabco waa madaxweynihii qaranka inuu isagu u soo dhawaado oo u soo dabco oo la fariisto oo waxa ay tabanayaan maamulada maqani waa wax looga baahan yahay aniguna waa soo dhaweynayaa runtii waxaana u arkaa fikir sax oo doorashooyinku soo dhow yihiin waxay muhiimad u leedahay laba arrinba heshiiska siyaasadeed ee dalku waxa weeye maamul goboleedyada maqani ay ku soo noqdaan saaxadda talada dalka waxay u leedahay muhiimad gaar ah oo masiirkii marka la go'aaminayay sida arrimaha baarlamaanku hor yaalay ee ahaa dastuurka in laga wada hadlo oo dhan loo jahayso doorashooyinka muhiim bay u leedahay waayo maamul maqnaadee talu la maqnaa taasi marka xagga doorashooyinka muhiim bay u leedahay isla maamulka Jubbaland muhiim bay u leedahay xayiraad dhaqaalaha saarnay xayiraadii dhaqaalaha waa laga qaadaya kaalmo caalamiga ma aysan gaarin waa laga qaadayaayo dalkii iyo deegaankii waxba gaaraya oo dawladda federaalku ay u qabanaysaa sidoo kale waxaan u arkaa inay muhiim u tahay dhanka madaxweyne xasan sheekh way doorashadii baa soo dhow maamulka Jubbaland xildhibaanna ka soo gala inuu gacan saar la yeesho oo la heshiiyo waa mid muhiim isaga u ah sababtu ku tahay waxa uu rajo ka qabaa inuu soo noqdo marka saddexda arrimoodba waxaan u arkaa inay muhiim u tahay xasan wax fara badan buu madaxnimada hayay maantana wax yar baa u haray oo bilaa intuu wadankan wuxuu u qaban lahaa ama wuxuu tari lahaa oo loo doortay waqtigeedii waa dhammaaday wax ka haray ma jiraan hadda maanta marka wuxuu doonayaa xukun hor lagu doonayaa xukunkii baana wuxuu ka galay Axmed Madoobe iyo Dani marka xukun ka helimayo oo waa og yihiin wuxuu yaabihii uu kula kacay iyo wuxuu uu sameeyay iyo wuxuu wadanka soo marsiiyay iyo dhibtii uu geystay xamar baa la ololeysa oo Puntland baa la ololeysa oo Kismaayo iyo inta u dhow baa la ololeysa marka dhibaatada inta faral leeg buu geystay ayagu marka haddii ay la mid ahayn heshiis iyo wada hadal iyo magaciis midna ugama fogna marka waa inay mawjada qaataan go'aan ah xasan oo kursiga ka deg intaas iyaga saaran
heshiis wax la yidhaahdo oo laga gaarayaa ma jiraanin waxa weeye muraad baa jira haddii wax laga gaarayo horaan looga gaari lahaa wakhtigeedii waa dhammaaday haddana waxa weeye nin waliba ninka kale siduu u xeeladayn lahaa uu u dhabar jabin lahaa buu falankeed hayaa waxaasna dalka iyo dadka iyo ummadda waxba uguma jiraanin haddii uu wax qabanayo xamar dabka ka ololaya oo uu ka ololiyey oo dadkii baaba'shay halkaas waxaa ka qabta keliya wax kaloo u haray ma jiraanin madaxweynaha Soomaaliya inuu tanaasulo dariiq baa loogu leeyahay waayo dalka oo dhan buu wuxuu yahay madaxweyne tanaasulka isaga loogu talagalay inuu tanaasulo madaxweyne xasan waa ku soo dhaweynaynaa inaad tanaasushid wax badan oo laga soo dabcay oo labada dhanba ay soo dabceen oo iyo shacabkooda u tiraya waa dhaway walaal magacaygu waa Maxamuud Axmed Nuux alxamdulillah garow waan ku noolahay oo dad Soomaalida garow joogaan ka midnahay arrinkan barnaamijkan haatan laga hadlayo oo Axmed Madoobe iyo madaxweynaha Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud wali waxaan u aragnaa guul u soo hoyatay madaxda Soomaaliyeed inay heshiiyaan wax walbana heshiis iyo maganas isaaf gaar lagu dhameeyo sababtoo ah haddii aan Soomaalidu heshiin oo madaxdu ayna heshiin de waxa ku baaba'aya waa shacabka iyo dadka magaranaysa dhibaatada gaaraysa waa inta ku hoos nool way waxaan u aragnaa marka arrin faa'iido badan heshiis in laga gaaro madaxdu ay tahay aad iyo aadna faa'iido u leh waxay u leedahay laba arrimoodba way u leedahay lambarka koowaad doorashada Soomaaliya oo sidii la doonayay insha Allah taala in uu dhacdo la rajaynayo oo waliba horumar iyo laga gaaro isafgarad iyo in lagu heshiiyo meel in wax loo dareeriyo waa horta faa'iido way u leedahay tan labaadna waxay u leedahay shacabka ku hoos nool oo ay madaxda u yihiin ayay faa'iido u leedahay inay madaxdoodu heshiiso kadibna ay wada jir go'aan iyo bayaan u soo wada saaraan taasay faa'iido u leedahay koleyba taasi waxay mar walba dhan walbaba waxaan isleeyahay labada dhanba way fiican yihiin oo soo duceen oo nin walba yaani wax uu ka tagay baa jira waxyaabo badan buu ka tagay waxyaabo badanna kulliba waa meeshoodii wax badan oo laga soo dabcay oo labada dhanba ay soo dabceen oo iyo shacabkooda u tiraya Puntland sidoo kale waxaan rajaynaynaa inay la mid noqoto insha Allah taala iyaduna waa rajaynaynaa faa'iido badan bay leedahay iyaguna insha Allah taala waa maalinba meel bay istaagan tahay Puntland ruuxeedu insha Allah taala meel fukama jirto waayo waa hooyada Soomaaliya horta walaal barnaamijka horta waan salaamayaa horta Afrika tookaya boqolka TV-gan barnaamijkan oo dar waxaan u arkaa yaani madaxweynaha Soomaaliya iyo madaxweynaha ninka la yiraahdo Axmed Madoobe maadaama hadeer yaani shir ay ku kulansan yihiin heshiiska anugu waa soo dhaweynayaa yaani anugu dhalinyarada hadda garow joogta baan ahay oo yaani Puntland kamid ah marka dadku in gadaal la isugu noqdo la heshiiyo waa wax dariiqa weeye oo khilaafka la dhameeyo haddii aan la idmo madaxweynaha Soomaaliya inuu tanaasulo dariiq baa loogu leeyahay waayo dalka oo dhan buu wuxuu yahay madaxweyne tanaasulka isaga loogu talagalay inuu tanaasulo madaxweyne xasan waa ku soo dhaweynaynaa inaad tanaasushid oo maamul goboleedada u tanaasushid wixii laga tabanayana wax ka qabatid baan u leeyahay la heshiinaysaa dib bay ka heshiinaysaa Soomaaliya inta meel kasta ay madhow waa tii heshiisa weeye waayo marka doorashada loo noqonayo haddii aan la idmo tii Soomaaliya soo dhow doorashada Soomaaliya soo dhow dadku saa si wada ahaan maayaan wixii mucaarad oo dhan inta qaad yaani meeshooda joogan haday rabaan laga rabaa tanaasul badan baa laga rabaa haddii maamul goboleed tahay haddii shacabka Soomaaliya ay tahay wax walba wax laga rabaa tanaasul fiican baa laga rabaa haddii aan la idmo